qabyaalad ayaa Soomaali kala gaabisay reebel aan isku nahay reebel aan isku nahay iyo qabiil soo loo waday beerti way kartay oo way bislaatay maxaa laga gurtay marka waxa laga gurtay baaba iyo dagaalo iyo dib u dhac iyo tahriib iyo rafaad iyo shaqo la'aan beerti aan guranay wakaas qabyaaladuna ay dhashay inaan ka baxna ma rabnaa marka inna allaha la yughayyiru ma biqawmin ma bina hada bal aan sideen nahay way macnaha bal inaan wareysan ma tisaan nahay jawaabtu waxay noqonaysaa si aan fiicnayn aan nahay ma isku waafaqsanay sidaan nahay inaan si ma fiicna sidaan way xun tahay kala googo'sana iyo rafaad way xun tahay sidaas ka bixi maysaan ilaahayna bedeli maayo inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta nahwada markii al-i'raabi maxaa la jiray harfu gaayatin wa nasbin lan nabraha alayhi aakifina hatta yarji'a ilayna Musa mudaari'ay gasha ila an yarji'a ila ka soo noqdo anaga san la si aanayna way bimaana Soomaaliyeey sidaan u baad ahaanaysan ila goorma ila an yarji'a ilayna Musa wa mugta ila hatta hay maxay inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila waxa gudahooda ku jira ay bedelaan sidaan bay ahaanayaan hadda inaga maxaa igu jira ma bi anfusina qabyaalada ka buuxda kii xana qabar heerkiisa uu yeeri wareebelo waa kana war adiga seed wax wadaniyo ma ya reebana la dhahaa anaga war waxaan wax ma reebel soo kii halkaan dhigay ma ku soo celinayna haye aan soo bilowna marka dana sidaan mar hore sheegi jiray askarta intii la gaardisiisay u gaardinayaan umba waxa la dhahaa dib u jeedso dib ma soo jeesanayaan meeshii ay ka bilaabeen gaardiga iyo markay istaagaan hor loo dhaqaajin maayo hadana hadii loo dhaqaajiyo xataa labadaba mar loo dhaqaajiyo hay hore ay socod yiraahdo oo hore u socdaan waxooga markay socdaan dib u jeeso way soo jeesanayaan meeshii markay soo istaagaan waxa la leeyahay halkiin ma u jeedaa darandoori meesha ku darandoori muxuu yahay labadii lugood ma meesha midna kor loo qaadi midna hoos loo dhig meeshii ma lagu celcelin luguhuna waxay meel ku gaaraan lugo waxa la yiri ismoodmood ama isdhaaf ayay meel ku tagaan Soomaalida waxaan rabnaa marka qabyaaladii ina baabi'isay inaan darandoori ka galno darandoori joog ilaahu dibka naga bixi xagee uga bixi adaba darandoorinaysid marka waxa la intii laga baxo in la yiraahdo waxaan soo wixii noo galay ma la abuuro raayi caam ah mid kasta oo wax ku raadiya reer inuu wax ku noqdo markuu afkiisa ka soo baxo yaa reebeleey in raayi caam uu ka hor imaada waxaas waa wixii aan eednay mar rabno hadduu arkay in la yaabayo wuu isku xishoon lahaa waxaan waa lagu qoslaayay waxaan ilaa qofka markuu dadka wax u sheegay waxa la rabaa wax ayna aqoonin oo natiijadiisa wuxuu noqon doona aan la ogeyn ayaa dadka lagu siri karaa laakiin wax natiijadiisa la yaqaano filim waxay dhijiraan dhalinyaradu filim dhamaaday ticket ha u goosanin filimka markay dhalinyaradu galayaan waxay ku gali jireen intaan la bilaabin koow laakiin markii filimka intii la fiirsado uu dhamaado gadaal waxa soo baa waxa la yiraahdo magacyada jilayaasha hebel saasu atarag magacaya socda ugu dambaysta waxa ku yaala the end wuu dhamaaday way macna hadda ticket soo goosad ka waran filimkan aan gala maxaa gala the end soo baxday wuu dhamaaday marka qabyaalada Soomaaliyeed the end ay taaganta meeshii ugu dambaysay jilayaashooda dhan waa la arkay natiijo laga ma gaarin burbur aan ahayn waxa soo baxay the end an-nihaaya filimku uu dhamaaday qofkii hadda marka koow soo bilaabaya hebel uu dhaaya kan waan fiirsanay ku kala ma haysaa u baahan marka filim la daawaday qiimo male in marka lagu celiyo marka filimka Soomaali way wada daawatay cid meel ku gaartayna ma jirto waana la soo maray islaamkan intuu salimaanin ka hor ayaa sida Soomaalidu hadday qabiilka ku yihiin oo islaynta ayaa loo isticmaali jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam uu kala dagaalamay wuxuu ku yiri waxaas iska dhaafa dacuuha qabyaalada iska daaya fa innaha muntinatun way soo uraysaa iska dhaafa markaas asxaabtii waxay sameeyeen gabayo ay kamid ahaayeen abyal islaamu la aban li siwaahu ani waxaan ku abtirsadaa islaamnimada la aban li siwaahu aaba kale oo aan ku faano oo islaamnimada ay ma jiro ida iftakharu bi qays aw tamimi haday ku faareen dadka qaarkii reer qays baanahay waa qabiil magci aw tamimi ama reer tamim baanahay waa qabiil magciis haday dadka qaar ku faanayaan reer tamim baanahay reer qays baanahay anu muslim hadaanahay aabahay waa islaamka al muslimu akhu al muslim hada taasal raba marka dhalinyarada waxaan marka haddaad aragtaan odayaasha yaa reebelayda ku haaya inaad tiraahdaan abiyal islaamu la aban li siwaahu maxay haddaad reebel tiraahdo Soomaalidu hor waxay u dhaxeen nin yiri aniga dad iska saar ayaa la yiri haddaad gaar isu bixiso tiraa aniga waa wixii shaydaan uu ku halaagsamay shaydaan muxuu ku halaagsamay nabi aadam u sujuudaa yiri markaas uu ugu sujuudaa aniga ana khayrun minhu aniga ka fiican ma adaa fiican naarta galaa la yiri marka haddaad aragtid mid ana ku faanaya aniga reebel haddaad aragtid
ونزعة الشيطانية وشيطان كي وكله عنيقة ورادي محاتاي ماذا وحو أركي نين إسكبرين هاي فان كجرو نين شيخ الله المكان سوري ورمحاسي كبرين إنسانيو مركز سوري ما يتقان المياه عنيقة وحور إنه ريال البان هاي عنيقة المال اللي كرو مركز سوري إما تقان المياه مركز سوري وانكو أقانا مركز سوري محاناي وحاتاي ورهدنا وحاتاي مسقول صعوته برينا وحاد نقوم دونتا سنك وحلا يقبسون دونه مركز محاتي أذو مركز هدنا مسقول صعوته وحلا يروح مركو نوليه دكتورك وارتي مركو قلين سمينا أم بكانك مركز اللي جيفنا دكاتيركم هاي كل سنك ودوبتان سنك أول حيران فيريا مسقوشي قلايان مسقوشي سعوتي داي يا ماشي وجفت قف مركز اللي قلايا بس سنك وحلا سعرنا أو مسقول صعوتا إنه فانو عنيقة ماشي كوهاي وحلا ما هدو دنتنا هل مال لو مسوي كره هذا أنت اللي جد الجليني بختي أورك الشواء وحاله ورماش أمون نقد اللعاء نجيب بسيال قف نوع عصودا بين يسوع أنا محيطها مركب أبي الإسلام لا أبا لي سواه والإزدلاء يوحي الكساب سني محل الله دجال ما محل الله دمنا أنا أصحابته حكي هذين إسلام نمون فلست أبالي حين أقتل مسلما يمون حين أقتل أنا رهيب الله ماركن فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي marka taasna waxay tahay in Allah aydan soo qaadan in Allah la yughayru ma biqawmin dad sida ay yihiin ilaahay ka qaadi u maayo ilaa ayagu ay ka bedelaan maskaxdooda waxa ku jira marka maskaxda aan bedelno oo raayaan guud oo dal iyo dibad ahba aynu ka wada qayb qaadano cunsuriyad iyo qabyaaladi waa tii saan noo gashay mar rabno qabyaalad mar rabno waxana nageyn mayso saa markay noqoto oo qof walba uu ka istaago marka dambe wixii dan umada waa ayaa la isugu imaanaya laakiin qofka intuu helaayo reebel markuu yiraahdo shacab u sacbiya iyo kuwa inta ka soo istaagay haduu helaayo dhibaatadii un baa la isku sii haynayaaye hal isku haaya nina hadda kor waxa laga kari waaye asoo dadka waabsanay wuxuu leeyahay sida aan rabay yeeli waayo cirkan soo dumina kuwa wuxuu inuu cirkan ugu soo dumin naga dhaaf wuxuu waan soo dumina ma yeelay aniga markuu kari waayo wuxuu ku dhageysanayo cirka soo dumi meeshii aad ka gasho aan ka gelina anagana hay haduu cirka soo dumo dadka dhan ku wada fariisanaya maayna kii soo dumiyay kaliya ma ku dhacaayo marka qofkii la kari waayo war adiga waxaan ta iska dhaaftid ummadnimo iyo islaamnimo iyo diin ayaa la rabaa isaas aad oo yiraahdo maya reebel ba sidaan reebel ba wax ku noqon qofkii yiraahdo bal reebel meesha ku gaarsiisaan aragne sidaan iska ahaan isaas taraal ku tahay ilaahay uu ka keenayo wax kale fasbiru hatta yahkum Allah baynana wa huwa khayrul hakimin intu ilaahay faraj ka furaayo dad kale uu ka keenayo wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum dad idinko kala aan ahayn ayu ilaahay keensanayo wixii la isku ogaa iyo mabaadi dad rumaysan ee ka gudbay asnaamta dadka lagu kala geegeynaayo ee wax ay tarayso aysan jirin dhibaato ma ogi marka wuxuu la mid yahay qabiilka tan soo koobo Soomaali marka u fiirsaday qabiilku wuxuu la mid yahay sidaan soo socota khamrada iyo maysirka markii la xaaraantinimeynayay dadku maadaama ay la qabsadeen oo ay u arkaayeen inay faa'iido ka helayaan isla markii lama xaaraantinimeyn kow lama kala siinin waxa laga soo bilaabay waqtiga in lagu ciriiriyo oo la yiraahdo la taqrabu waxa loo sheegay horta waxay yihiin yasalunaka 'anil khamri wal maysiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas waxa li dambi badan ayaa ku jira wa manafi'u lin-nas waxoogaa nacfi ana wuu leeyahay oo khamaarku nacfi wuu leeyahay waxaa ka mid ah qof xoolihiisa intaad hesho ood khamaarka ku qaadato yaa waxaad leedahay waan kaa helay wuu iska tegayaa haye waxbaan intaanan ku soo helay waa intaad in ka badan aad hesho laakiin haddana berri aad soo noqono ilaan xaaraan baad dhamisay markaad berri soo noqoto yaa intii shalay iyo in ka badanba yaa laga heli doonaa adigana waa waxaan natiijo lahayn khamaarku khamraduna qofku markuu cabo waa balwadaas oo sida kuwa jaadka cuna soo ma arkin intuu jaadku ka maqan yahay way rafaadsan yihiin markuu jaadku yimaado oo la fariisto oo waxoogaa intuu soo helo salka dhulka uu dhigo waxoogaa qareerka uu ku tago indhahan baa ful noqonaya adduunka dhan asiga madaxweyne ka ah waxa aan jirina ka hor imaanaya daaru dhisaya waa isu waadanta suu saaw yahay wixii uu dhamaanaya qashinkii u dhex fadhiyo arkaya waa la qaadaya waa la tagaya markuu ka baxo waaba meel cidla aba wax alla wax u haayo daarihi waa weynaana way dumeen meel cidlu u fadhiyay ilaa ma dhahayo warwaan khaldamay ee daare waaweynaa oo shalay dhisnaaba maanta iga baabacay ma dhahayo daariyoodana marka raadina jaad yaa ark daartii raay inuu dhisaadana wuu soo qaadanaa meeshuu fariisanaa haddana daartii u dhisaa waatan haddana marka xogaagaas daar dhisidda waa wax naftu ay ka heshaa leeyay khamradana waa saas oo kale markay khamrada cabaan ay waxoogaa daroogoodaan ayaa wax kala u soo baxay intaas markii la yiri oo dhib inay tahay la sheegay laakiin waxa ismun kabiir waa dambi weyn wa manaafi'u lin-nas dadka aqliga leh marka waxay yiraahdeen
وروحان هدي لغو شيغي دنبي وان اسك دافينا قاراسا ku dhaaf ko waxay yiraahdeen horta ma la sheegay waa manaaficu linnaas waxoogaa nacfi ama ku jira nacfigaas lagu sheegan si daba socon meeshu ku dhamaadan arki khamraday sii wadeen marka hadda qabiilka Soomaalida aan ku keenay qabyaaladu iyo qabiilka Soomaalida hadaad fiirisaan dibkiisa iyo dheeftiisa isbarbar dhig dheeftiisa maxaa kamid ah dheeftiisa waxaa kamid ah waxoogaa yar oo waxaa jira marka qaar kood qaaraan iyo oo hadii qofku intee waxoogaa wax yar si kayra noqdaan ama dil oo mesela qof asoo u kaseyni baabuur oo dardarsiyo oo dil oo aan kas ahayn ku dhacay islaamku wuxuu dhahay diyada ninkaas miskiinka ah aan asaga kas wax u dilin 100 neef oo geela keligii ma qaadi karee qoyskii uu ka soo jeeday ayaa la saaray diyada waxa ninkaas garab siiya diyada la bixiya waa kaalmo wa taawunu al bir miskiinkaas u kaalmeeya laakiin inaga maxaan sameeynay dilkii khadaaga ayaa la isku ogaa la soo kaalmeeyo mid kas ah oo intuu qofka qori soo qaato oo dadkii kas u dilaayo yaa waxa la reerkii haye dhiigana galay qaaraan la soo ururiyo bas qaaraanka la soo ururina kii dadka kas u dilay waa laga dhiibay maxaa ka dhacay markaas kadib qofkii intuu kibro ilaa lacagtii waa laga dhiibay yaa dadkii intuu isku taago wuxuu leeyahay wallahi intaan shan xabadood kugu dhufto qaaraanka waxay ugu soo aadaysaa aniga beesheena markii la kala qaybiyo 100,000 oo shilin Soomaali ah marka nin iga leex markaas heer waxaan gaarnay dhaqankeena Soomaali waxa kamid ah mesela qof haduu dameer haduu dilo iyo haduu qof bini aadam dilo laba dil way fiiriyaan qof dameer ayuu dilay ama wuxuu dilay qof bini aadam waxa xeer oo iloo yaala Soomaalideena dhaqankeena kamid ah dameerka qofka dilay lala bixin maayo xayl wuxuu dilay waa dameer asaga iska bixinaayo wali lama sheegay yaa arkay diyo soo ururiya dameer la dilay wax dhahay ma jirto qofkii dameer dila asaga iska bixinaayo laakiin ruuxu qof dila reerka la bixinaayo meeshaas waxa ka soo dhalatay marka in dameer la dilo iyo in dad la dilo waxa xanuun badatay in dameer la dilo maxay leen bin aadam waxa meesha uu ka naxo waxa ugu horeysa jeebkiisa waxaan ay ka go'an yihiin marka la dhaho wax ka xanuun badan male wuu ilaalinaa marka warniyo dameer ha isku dilin lacagta adiga kaliya bixinaysa cid kula bixinaysa ma jirto intaasna kaama go'do marka dameerka nabad uu helay marka alxamdulillah dameeru wax moog waa laga xalay mushkiladii wax dameer dili ma jirto dadkii la isku fasaxay marka waxa leeyahay adigu wad markaas intuu dadkii dilo ayaa diidii laga bixin wuu dili waa laga bixin wuu dili waa laga bixin ilaahu dhibka naga bixiyay marka see laga adaa badiyadiisii bixinaysid hadii la dhigay qofkii kama u dilo see shariicadu ay qabto qofkaas waan ka bixinayna diyada laakiin qofkii kas u dila sida ilaahay uu yiri qofkii kas u dida naartan gelinaya naartan ha galo aakhiro adduunyadana hal la dilo ama hadii diyaha laga qaato la yiraahdo asaga ha laga qaado kaliya hadii saa la dhigay qof walba wuxuu ogaan lahaa wardiyada iska bixin kartid aakhirana naar ku waaritaankeed ma sahlanee dadka isku dilin waa la joogi lahaa marka fursad waxaan soo abuurnay marka qabiilka waxaan ku keenay marka midka khadaaga ah oo diida uga bixinaayo waa manaaficu linnaas faa'iida ku jirta laakiin hadda Soomaali markaan noqonay qabiil inta aan ka faa'iidnay iyo inta uu ina yeelay yaa badan inta ina yeelaa badan maxaa yeelay dawladdeennii ay waxay ku duntay qabiil daraadi hal soo celiyo hal isu yimaadana waxay laga dhaqaaqi laayahay reeraanna marka soo ma noqonayo sidii khamrada iyo maysirka oo kale ismuhuma akbar wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima manafi'u way leedahay laakiin dibka ay keenaysaa ka badan marka khamra iyo maysir soo xaraan ma ina ahayn qabiil illa isugu faan oo la isugu dilana way ka sii xaraansantahay maxaa yeelay qamaarka iyo khamrada qofkii isticmaala dambigiisa asagu ku kooban yahay laakiin qofkii qabiil u ololeeya ummadda ayuu soo gudbaa dibkiisu oo waa la isku leynaaya dadkii ayaa isku dilaaya nabigu wuxuu yiri marka laysa minna annaga nagama mid ah nuguma jiro man daa qofkii dadka ugu yeera ila asabiyatin qabyaalad qofkii qabyaalad dadka ugu yeera laysa minna annaga nagama mid ah aan isweydiina marka nabigu cidii uu diiday safkiisu uu ka bixiyay xagee aadi marka xagee ku jirtaa waana huba qof hadda raba safka nabiga in laga bixiyo ma jiro dadkeena arkaysan kulli nabiga jeceliin habka loo jecel yahay baa la kala duwaayaa laakiin qof hadda nabiga nacbaa la soo istaagay ma jirto hadda nabiga jecesha oo jacaylka nabiga uu run ka yahay hadalkiisu waa kanaaye qabyaalad ka fogow qabyaalada isugu dhawaani nabiga xilligiisa waxa dhacday in lagu faanfaano inay dambi tahay si loo muujiyo ya waxa isku dhacay laba saxaabi Abu Dharr al-Ghafari iyo Bilal Abu Dharr nin carab ayuu ahaa markaas wuxuu ku yiri yabna sawda kii hooyadiis ay madoobaydo Bilal ku jeeda wuxuu hooyada ayaa madoobayd
واسيد هذا ممكن قبيل كم كيلو سكوا عينايو نوع عاصع تهاي أنت بالدي هذا وحاسنا واحد دين تكسر دكتور اللي سكبها بيو اللي سكتر ترى اللي سكتر بيو مركو كوير يا ابن السوداء نبي الله شيء أبو ذر الله يري وحالو يري عيرته بأمه ما هو يدي بتكو عين يسا إنه هو يدي مذوبي ما عاب كده يساعدك إنك امرؤ فيك جاهلية وحتى يقف أي جاهلية وحن في عيننا كوجرة مركز أنتو كش الله بلاو يرحول بلالو قال ولالو لوك أيان سيحنا ياه وجهك يعني لوك دقا ياه رفورك كباها عضو قبتد وهكا يقصر نفتن سيانو تربيهيو oo waxa ku jijiray anaga noocaas ay iga baxdo kaalay oo kabtaada adoo qaba dhafoorka iga istaag fiir suuqa toobad keenay yani hooyada madowleed wixii ka imaaday maxay waxa laga nabigu wuxuu ku yiri hadal adag oo ah innaka imru'un fiika jahiliya waxa tahay qof ayna ka bixin jahiliyadi islaamku muxuu imaaday wixii jahiliyadu ay sheegi jirtay oo dhan ee isugu faahfaahmi jiray in dadka laga bixiyo bedelkeeda loo geliyo islaamnimo dadku ay u siman yihiin oo ina qabiil ku kala fiicnayn oo ina maal ku kala fiicnayn oo ina gobol ku kala fiicnayn ay ku kala fiican yihiin inna akramakum inda allahi atqaakum hada huwa shi'aar al-islam marka dhalinyarada inay saas u tarbiyooban oo wax aan waxba taraynin oo lagu baabay oo lagu halaagay la daba orodsiyo taas waa mid aan uga digayno waana lagu soo baabay cid natiijo ku gaartayna male cid ku gaari doontana male waxa wax lagu gaarayaa islaamnimadaas thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amr ta'ala ummadana Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ilaahay subhanahu dhibka ka qaado inta xanuunsan ilaahay xanuunka ka qaado si gaar ah dad u codsaday waxa jira in ay jamaacada masaajidka u soo duceeyaan oo xanuunsan dadkaas ilaahay xanuunka ka qaado ilaahay asaga caafimaad haaye inta xanuunsan meel kasta adduunka ka joogan allaha siiya caafimaad degdeg ah gabar yar oo leeso sheegay wadanka Ingiriiska inay degantaa Ridwaan la yiraahdaa si u xanuunsan marka culimadan Soomaaliya joogta oo Quraanka akhrinaysa ayaa ilaahay inay u soo baryaan ay weydiisanayaan marka ilaahay inuu caafiyo gabadhaasna si gaar ah ugu duceeyo ilaahay caafiyo iyo inta kale oo muslima ilaahay caafiyo inta gudaha ku dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka qaado